السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويسلام يا دمان ولا Soomaaliyeed ee halkan iga daawanaya meel walba aad joogtaan iyo si walba in maqlaysanba waxaan muuqaalkan ku falaqayn doonaa laba arrimood oo kala duwan waxaan marka hore ka hadli doonaa ama aan isku dayi doonaa bal aan jawaab u raadiyo dadka ay fahmi karayaan Xasan Sheekh Maxamuud miyuu aqoonsaday maamulka SSC qaybta horan kaga hadli doonaa waxaan kaloo ka hadli doonaa Saciid Cabdullaahi Dariima iyo mucaaradka Puntland yaa qaldan ayadana waa falanqayn doonaa go'aanka reer Puntland ayaa kala qaadan doona labada qodob baan falanqaynaa soo dhawaada meel walba oo aad joogtaan iyo si walba oo maqlaysanba kulankii firdhiye iyo Xasan Sheekh Maxamuud conclusionkiisii baan ka bilaabaynaa iyo waxyaalihii aan helay information aha balse aynu su'aasha jawaab ugu helno shacabka reer SSC aan mar walba ka hadla arrimahoodana bal ay wax uga fahmaan falanqaynta maanta halkan aan ku soo gudbinayo Xasan iyo firdhiye ayaa kulmay dhowr habeen ka hor sida daraadeed kulan muddo badan la sugayay ayuu ahaa waxyaalo kala duwan bay ka hadleen kulankii firdhiye Xasan waxa joogay rag koox ah oo markaasi siyaabo kala duwan shirka uga qayb galay oo miiskii lagu wada hadlayay markaasi fadhiyay nin ka mid ah raggii meesha fadhiyay ayaa miiska soo saaray message ka yimaaday Ismaaciil Cumar Geelle oo aan ahayn message la qarinayo oo official ah ayuu table-ka soo saaray qofkii ugu horeeyay oo message-kaasi furay doodeedana Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ahaa message-ku wuxuu ahaa maxaabiista hal kala wareejiyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ha loo dhiibo maxaabiista markaasi ninka topic-ga loo soo dhiibay oo Ismaaciil u soo dhiibay waa la iga qariyay qofka uu yahay magaciisa waana la ii diiday laakiin maadaama aan ragga meesha fadhiyay oo dhan aan hal u garanayay waa qiyaasi karaya laakiin ma doonayo inaan soo gudbiyo taa waan ka gudbayaa sida daraadeed Xasan Sheekh Maxamuud oo qaatay hadalkii qofku ugu horeeyay oo hadalka ka hadlay meesha aha ayaa ka codsaday firdhiye inuu maxaabiista ku soo wareejiyo xamar la keeno kuwa reer Somaliland ee hayaan xamar la keeni doono isla markaasna la isdaamarsan doono iyo arrimahaasi firdhiye wuxuu yiri maxaabiista qaybta saraakiisha ah ee dagaalka geysatay dhibaatada maxkamad baynu geynaynaa go'aankaas meel inoo yaala in go'aanka wax laga bedelana shacabka reer SSC baa taladaasi wax kale iyo isimada iyo garaadada ayaga marka kula laabanaya laakiin kuwa kale to waan ka macaamili karnaa processka loo marayana waan isla fiirin karnaa waa caadi oo ogolahay biir inta markii hore dhimaanka laga hadlay ama soo jeedintaasi halka laga gudbay ayuu firdhiye asagoo soo jeediyay in maamulka loo aqoonsado maamul kamid ah kuwa dalka soo fariista table-ka maxaa la yiraahdaa maamul goboleedyada isla markaasna lagu daro budgetka dalka Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri waxaan idin aqoonsanayaa maamulku meel gaar ah oo 2 sano waxay inta ka dambeeyana baarlamaankiinu iyo dawladdiinu waxay noqon doontaa mid ka mid ah kuwa kale laakiin hadda ku meel gaar ahaan baan idin aqoonsanaya nuxurka kulanka marka meesha wixii ka dhacay inta ayuu ahaa inta ka dambeeyay sheeko iyo iswaraysi iyo kaftan baa iska gacan muuqaaladii la wadwaday ee firdhiye uga hadlayay maxaabiista waxay ahaayeen muuqaalo ka horeeyay inta uu shirkan u sameeyay kuwa ka dambeeyay ma aha dadka marka wadwada intaas aan rabaa in xasuusiyo haddii marka analysis ka sameeyno hadalka Xasan yiri iyo wixii meesha ka dhacay aqoonsi bay ahaayeen baan ku soo bixiyay bal analysis baan ku sameeynaa ama falanqayn ku sameeynaa marka ugu horeysa waxaan isleeyahay Xasan Sheekh Maxamuud ma uusan ahayn qofkii weydiisan lahaa maxaabiis firdhiye maxaabiista nimanka laga haysto Somaliland hadii la doonayo marka in la isdaamarsado cidda la doonayay afkeeda inay ku hadasho message-ka soo gudbiso ay keento lana hadli karayaan reer SSC waa Somaliland sama inuu Xasan Sheekh Maxamuud maxaabiista ka hadlo oo miiska soo saaro uu codsigaasi uu soo gudbiyo waxay muujin kartaa markii si dhaba loo fiiriyo inuu Xasan qayb ka ahaa kooxdaasi muujin kartaa ninka loo soo dhiibay iyo Xasanna inay is og yihiin waa la shaki waqti ugu adkaa oo ay soo mareen reer SSC waxay ahayd waqtigii la duqeynayay magaalada Xasan inta Muuse u yeeray kama u soo codsanin in umada laga daayo duqeynta in la wada hadlo inay ka baxaan iyo midna kama uusan hadal message-kaasna ma uusan soo saarin table-ka isla markaasna firdhiye lama uusan kulmin in marka maanta Somaliland saraakiisha ugu weyneed laga hayo inuu Xasan table-ka soo fariisto oo arintaas uu soo gudbiyo toon kale muujinaysa ayadana markii si waaqici ah loo fiiriyo haddii aysan maxaabiista ahayn arrintooda ma maleynayo Xasan inuu la kulmi lahaa firdhiye u yeeri lahaa Xamse loo soo dir lahaa ma maleynayo ma aqaan adiguna u maleynaysa laakiin anigu waxaan isleeyahay arrintaasi ma aysan dhici lahayn baan isleeyahay message kan marka maxaabiista ah soo dhiibay Ismaaciil iyo Muuse
ninkii loo soo dhiibay oo meesha yimid sidaas u sheegay xasanna wuu ku waafaqay qorshe isla ogaayeen inuu yahay firdhiyana wuu arkayay sidaa daraadeed marka haddii ismaaciil iyo muuse ay soo direen qorshahan sida xasan u aqoonsanayo maamul ahaanta ugu aqoonsanayo shaki baa idan la gelin karaya waayo ismaaciil iyo muuse waxay doonayaan dib inay u qabsan SSC ma garanay marka sida xasan ugu aqoonsanayo maamul ahaan ugu aqoonsanayo isma qabanayso labada arrin meesha marka arrin baa ku jirta muujinaysa inay ku jirto qiyaano aqoonsigan la sheegayo inay wax ku jiraan baalka ku jirta waayo muuse ma uu doonay nimankan la aqoonsado hadduu xasan soo dirana xasan aqoonsigiisu dhab ma noqon karayo ma arkaysaa arrinta midda ka weyn oo tuhumka aniga ay gelisay waxa weeye muuse hadlay ilaa 20 daqiiqo ayuu hadlay maalinka shalay ahayd muuse ma cambaaraynin kama hadal aqoonsi in la aqoonsaday ma sheeginin wuu ka aamusa waxaynu ku dhaqanay Somaliland wixii xamar ka soo yeera oo ay dhibsadaan way ka hadli jireen haddii SSC la aqoonsaday way qaylin lahaayeen muuse weliba dagaal ku dhawaaqay ayaa ka aamusay aqoonsi la sheegay in SSC la siiyay mis qabanaysa maya ninkii xaashiga lahaa asaguna oo ayaa dhow tahadlayay oo sida jiricsan iyo calool jileeca u hadlayay walaalayaalow awoodda adinka haya adinkaasana ku hayay baa asaguna hadlay kama uusan hadal aqoonsigaas wuxuu yiri waxaan uga digaynaa xasan sheekh maxamuud in uu SSC maamul ahaan u aqoonsado waan uga digayaa buu arta inuu sameeyo taasoo macnaheedu tahay muusan samaynin weey hadalka markii uu lahaana waa kulankii Firdhiye xasan kadib ayuu hadalka yiri Faysal Waraabe asaguna maalmo yar ka hor qurbaynta wuxuu ka sheegay in la shaqeeyo xasan in xasan la taageero in xasan la difaaco in xasan la garab istaago xasan sheekh maxamuud arrimaha dhan waxay muujinayaan kalsoonida Somaliland iyo xasan ka dhaxaysa siday xulufada u yihiin bay muujinaysaa haddii marka ay xulufo yihiin sidee SSC loo aqoonsaday sidee suurtagal u tahay sidee Somaliland uga aamustay ayadoo xamar aqoonsi lagu siiyay SSC iyadoo artaas ay uga aamusta artaasi ayadana suurtagal ma aha meesha wax kala ku jira ugu dambeyn qaramada midoobay ayaa maalinka bisha 10keeda ay ahayd waxa laga sugayay inay soo saaraan report waa 10kii bishan inuu ku jiro October reportkaasi waxa ku qornaa rag aad u tiro badan oo markaasi ku xukuman dambiyo ay ka geysteen laascaanood iyo xasuuq shacab ay geysteen waxayna ahayd sida caadiga ah in la soo saaro 10kii bish ilaa hadda reportka waa la haystaa lama soo saarin ragga ku qoran reportkaasi Faysal Cabdi Bootaba kamida oo hadda la googoobayo xamar iyo Hargeysa iyo Djibouti laga dooriyay in marka la sii daayo aydan waxba aan lagu sameeynin reportkaasi inuu soo baxo xasan baa ku fadhiya ayaan maqlayaa lastoo aan garanaynin sida xasan reportka iyo inta uu fadhiyi karo haddana dad kala duwan ayaa artaasi aaminsan reportka jaldigiisa oo aan helay ayaa halkan ka muuqda waxaad ka arkaysaan inuu ku taariikhaysan yahay 10kii bisha 10ka bisha inuu soo baxan ay ahayd ilaa iyo bishan hadda maanta 12 ah oo dhan baan sugaynay ilaa bishii hore ogeyn anigu xataa maalinkii bisha 10ka waxaan soo qoray waxa maanta soo baxaya report weyn baa soo baxay aan soo qoray ilaa hadda reportka lagu fadhiyaa reportkaas waxa ku qornaa in Faysal Cabdi Bootaan la geyn karayo maxkamadda cadaaladda adduunka isla markaasna lagu xukumi karayo dil maadaama uu xasuuq shacab u geystay reportka xagee aad qaramada midoobay yaa ku fadhiya ilaa hadda ma garanayno haddaba marka su'aashii ahayd miyaa la aqoonsaday maxaa Firdhiye loogu yeeray arrintan igama degin mana laqin mana u arko arrin dhab ah go'aankii sad u qaadanaysa adaa yaqaana laakiin uu soo arkaa waa ka baxay halkaas aan uga baxaya qodobkaasi Siciidani iyo mucaaradka Puntland yaa qaldan waa su'aal kale awtoobiyadu oo su'aalo laan la isgaranayso ma waxaan ka bilaabaynaa khudbadii Siciid Cabdullaahi Dani waxa la jeediyay runtii xasaasiga ahayd baan ka bilaabaynaa Siciid Dani khudbadii xal wuxuu kaga hadlay saddex arrimood oo kala duwan bay ku soo koobnayd mid doorashadu kaga hadlay mid arrinta SSC buu kaga hadlay mid tuuriyo xasan sheekh maxamuud uu tuuriyay bay ahayd mar walba uu hadlo Siciid Dani ayaamaha dambe xasan uu tuuriyaa tuuriyada xasanna Siciid Dani wuxuu ku helay runtii taageero aad u weyn buu ku helaa arrinta inuu taageero SSC inuu xasan sheekh maxamuud uu tuuriyo mar walba taageero weyn oo reer Puntland uu ku helaa waa arrin uu fahmay duqa mar walba oo hadlayo awshaas ay soo ku jirtaa dawa kaftan weey maadaama marka arrinta SSC aynu ognahay maal horna idin sheegay waa red line Siciid ba taaban karo haddii reer SSC ay yiraahdaan waa ka baxayna maamulkaana iskuma day kara Siciid inuu tafarag geliyo xildhibaanada la soo baxo haddii doorashadu ay noqoto mid dabdaban
arrintaasi ay say no waana sidii baad arkaysaan siciid arrintaa ma samayn kara cid samayn kartaana ma jirto waana dambi waana ceeb dadka walaalaha iska horkeenaysaa waana sidaan u sheegay siciid uu ka caaro waxaan ka fiirinaynaa marka qaybta aan fiirinayno waa qaybta doorashada weeye xasan turidiisii muhiimad male arrinta ICC-na waynu ogeyn meeshuu ka istaagi doono iyo inaan halkan la aadi doonin horaan u sheegay waana ogaadin wada ogeydeen waxaan ka hadlayaa marka qaybta doorashada uu ka hadlay siciid iyo dagaalka iyo cabsida laga qabo in amnigaasi uu qalqalo taasaan la isgaranaya doorashada wuxuu yiri siciid guddiga doorashada beck ayaa qaban doona jadwalka ayaga laga sugayaa waan ku qanacsanahay one man one vote baan qabanaynaa ayagana ka sugaynaa buu yiri siciidna wuxuu rabaa inuu beck ka soo dhaxadlo oo ayagu markaa ay sheegaan xilliga doorashada lagu qaban doono ma 4 bilood bay noqon doontaa oo hadda ka dambaysa 5 bilood bay noqon doontaa 6 bilood bay noqon doontaa sanad bay noqon doontaa lama garanayo laakiin beck baa waxa laga sugayaa inay sheegaan xilliga doorashada lagu qaban karayo one man one vote ka waana qasab waa xilli ka badan xilliga hadda ka haray waqtiga siciidin 2 bilood ugu ma qaban kale waa been waana halka ay ka bilaabanayso extensionka ay ka qaylinayaan nimanka mucaaradka waxay arkayaan waxa weeye cid walbana way arkaysaa ma ahan arrin secret ah dadka siciid taageeraya ay emotionka iyo cadiifada laga warsugo leh dad runtii indhahoodu waxa hor yaal waxaan ahayn aan arag weey laakiin markii January la gaaro ayay nagu soo biirayaan wax hadda aynu arkayno ama dadku ay arkayaan siciidin waxa uu qorshaysan sida ka muuqata inuu yiraahdo beck back extension ka sameeyay laakiin anigu ma sameeynin ku qabtaan in waqti fiican way ku qaban waayeen eedda marka ayagu raayeen iska saaro wuxuu rabaa in asaga iyo beck uu ka dhigo laba kooxood oo shuqlan isku lahayn arrintaasna xaqiiqo ma ahan waxa la aaminsan yahay in guddigaanu uu saameyn ku leeyahay siciidani mucaaradkuna muddo badan bay ka qaylinayeen guddigaani saxaanshihiisa sida uu maxaa la yiraahdaa dhadhacaad u yahay marar badan bay ka qaylinayeen ilaa hadda bay ka qaylinayaan markaysa siciidan wuxuu rabaa inuu yiraahdo aniga iyagu waan kala duwanahay haddii ay extension aadan ayaga u taala aniga ma aha xilligan lagu qabto ayaan doonayay su'aal baa halka ka imaanaysa marka muxuu siciidani u siin waayay beck xilli hore oo 2 sano ka hor ah inuu yiraahdo jadwalka qabta doorashada idinka mas'uulka ah bilaaba xilli hore maxaa loo bilaab waayay maxaa loogu soo aadiyay xilligii uu mandate siciidani uu dhamaanayo maxaa loogu soo aadiyay in beck marka la siiyo awood ah in ay ugu doorashada madax banaan yihiin iyo inay jadwalka sameyn karaan iyo inay arrinta garan xalayto shaqadii uu siiyay beck siciidani horay maxaa loogu siin waayay haddii aan extension aan la doonaynin waa su'aasha ugu horeyso mudan inaynu markaa isweydiino arrinta markaa taagan waa arrin keeni karta inay colaad iyo dagaal iyo hub iyo xaalad aysan shacabka u baahnayn inay markaasi ay meesha ka dhacdo waana wax laga baaqsan karo horena waa looga baaqsan karay waqtigii loogu talagalay doorashada in lagu qabto oo ay mudnayd in la soo bilaabo one man one vote 2019kii bay ahayd ilaa 2020kii bay soo bilaabay ayay ahayd maadaama shaqadu ay badan tahay maadaama registrationku ay dad badan codeynayaan maadaama aan horay Puntland aysan uga dhicin one man one vote waa shaqo xilli hore in la soo qabto ay ahayd xilliga shaqada la doonayay in la qabto ama loogu talagalay in lagu qabto Siciid Cabdullaahi Deni wuxuu jiray xamar wuxuu ka ahaa siyaasi Puntland ma ahayn siyaasi xagga federaalka ah xil ka doonaya siyaasadaasi qayb ka ah ayuu ahaa Puntland uu ilooba markaysa Siciid Deni wuxuu xil doontay xamar dagaal badan buu u galay doorashadii Soomaaliya ayuu dagaal badan u galay muddo badan ayuu maxaa la yiraahdaa halka ku jiray xildhibaanadii Puntland ee federaalka markii la xulayay kooxdiisii hore uu ka tirsanay Arjan heshiis buu la galay wuxuu yiri aniga taageera idhisa xildhibaanada isiya xamar baa idinka aadaya haddaan guul dareysto iyo haddaan guuleystaba idinku soo laaban maayo waa dhiseen kuraastii dhan buu boobay markii uu boosaaso tagay ilma diyaano oo aan qayb ka ahayn Arjan ayaa dabcan hor istaagaan in kuraastii boosaaso taalay marka la boobo dagaal baa ka dhacay wateen ogeyn muddo badan bay qulub gashay finally uu boobay xamar buu la tagay wakii soo waayay madaxweynaha wakii xasan taageeray haddana ra'iisul wasaare kula ballamay oo dabcan haddana uu ka qaato ra'iisul wasaare markuu wadana ka qaadan waayay uu soo laabtay waqtigiisii oo ay ka harsan tahay less than a year 8 bilood markay ka harsan tahay Siciid Deni wuxuu bilaabay inuu yiraahdo waxaan qabanayaa one man one vote bilaabay ayaan qabanayaa mid wuxuu balantii oga baxay raggii Arjan ah wuxuu ku yiri waa joogaya waraa wixii noo sheegtay
سعيدني مركب waxaan oran karayaa waqtigii la rabay doorashada Puntland lagu qabto asaga ku dhumiyay xamar waxay ahayd marka inuu tanaasul sameeyo qofku waa inuu qaadan karo mistakes qaad asaga sameeyo wasaan arkay inuu la fariisto inuu heshiis la galo inuu qanciyo ay ahayd marka kulligiis waa ilmaadiiradiis way deegaanka yaray degan yihiina ma ahan deegaan uu u baahan yahay Siciidani ku dagaalamo umada ku loo baahna qofku waa inuu qofku ku riimo leeyahay way Siciidani waxaad mudanaan ku riimo lahayn nimanka ilmaadiiradiis way xamar asaga Siciid ka aaday wuxuu Siciid sameeyay wax qarsoon ma everybody ogi hadii marka ay tii hor u shaqeyn weysay midaan dambeeto inuu gorgortan ka galay ahay inuu la fariisto la macaamilo ku qanciyo seed rabtaan u yaday haduu raka la nuush markaysa haday marka diideen hatta doorashada ma vote-ka maadaam waqti loogu tala galay in lagu qabto uu ku lumiyay shaqaan ahayn 5 sano door Siciidani 3 sano xamar buu ku lumiyay siyaasadi markaysa ama xal oran kara 3 sano iyo barba xamar buu ku lumiyay la oran kara maalintii uu yimaaday Siciidani siyaasada Muqdisho fuula farmaajo mucaarad Axmed Madoobe soo raac madasha watashiga dad baad waxay ka sheekeynayaan madasha watashiga qaran oo kale kuwii la lahaay xamar isbaaraysay dawladnimadii ay la mid yihiin kuwa hadda garow jooga ay la mid yihiin baad ka leeyahay hadaynu xataa mid ka soo qaadno madasha watashiga qaran ee xamar joogtay Soomaali kuma jirin waxay kala duwan yihiin dad baa leeyihiin nimanka mucaaradka ah Ismaaciil Cumar Geela wata حسن شيخ محمود داوطة حدينا واحد كسر قام الساعة هم سعيدني وطا سك حسن إمارات بوطمية أوكي نك إمارات وطو ينك إسماعيل عمر قال له وطا حسن وطو كهترن مركا وإسلام ماشي واحد معنا مصر منا يا إن السوق هذا يوحس أنا وما أكلم معنا سمعنا يا سعيدني مركو حلق جدبون حرب بدل لق جدبون ما مول بالة تاجرة نبض على تاجرة لكن شخص كتاجر نودي سو وحب كرنيسو ده سعيدني تاجرتان وكان هو قاعدان ولا دجال واحد بقول يقولك نيود وين مركز سعيدني الله شيء سعيدني حلي اللي قبل لا ون من ون حمر بجرت نما كان وان نما تلقى أول شيء سياسة وحبي كهربان باش رجع لفر لقوا قصو وهي تكون شيء سنتك قوة ما عمره قوة كده باش حوجة هدي إد لقمان يعيد الربع لقد سعيدني واي responsibility يسيبون تطيعي أيو حمر عاد هذا حمر حيل كان وكقبل لها يا بدلا مدحوين يا وهن لها أو نيكون أعتق حجيبوا أدي لها حاول بالفريق لها يا ديك مدحوين دين لقناها لما قرني هدول الرجال لها حاول ديك أدي لها أوبشن كوار ريا وسعيدني وراها ما هي بدلا أوبشن كلاد بواحد بدلا أطح سعيدني شران شر وحمر هو نقطة واحد قفل بينه وأوجي هذا الكمركة وسددي فبراير ومدحوني هرا الصومالية وكلها بمانت هري الله oo ku eedeynayay inuu farmaajo diiday inuu gorgortan siyaasadeed la galo taasoo marka dib farmaajo u sameeyay arkaysa marka Siciidani waxa maanta marka hor yaal waxa weeye tala fariista ragga la gal heshiis adar baasha ada ku cayaaray adar meel waqti kale meel kale kulmiyay baasha la fariista ragga qanci sidii qanci idinka shaa oo 17 September u qaateen tala fariistid waxay ku qanacsiin tala aadid dadka umada xabada laga daayo haday wan man vote diideenna adaa ku cayaaray baashan waqtigeedii wuxuu bilaabay Siciidani wan man vote ka qaybteed ugu horeysa 2020 kiiba bilaab 2019 midkood bilaab maalinku la farmaajo uma hambaliyeen maalinku laha uu bilaab inay dhamaato goorma loogu tagal long time bedman lahayd laakiin xageebu jiray xamar buu jiray mar buu sii qaaday mar lacag buu sii qaadayay mar xaq buu fadhiyay mar imaaraad ku fadhiyay meelaas wareegaya yaa qaldan marka asaga iyo madasha وسؤال كل هذه كان يدينيه لكن أنا عرفت هذا سعيد بقى قلدا سجل الرجال تنازل كسبيه سجل responsible قف كمزول كله باين وتنازله وأمني كشقيه مركزها هذا الديو وان ما وان فوت كم حدا عيا ولا دجالمية لكن هدو تنازله حدا عيا لا دجالمية مرة بمرك عدة لو باين التنازل كقاطه وعدة مزولية ده أيضا إسعارته هو دجال كعاود على سعيد بلا وديني لكن أنا ديان لما وديني أنا ديان وأنا معارض ما استتعاود الجبية لما وديني ميت كان لما وديني أسأل وديني أنت سامسو كوبيا أنت تبي سؤال لعبنا